mudan farmaajo aad baad u mahadsantahay Nairobi ba muddooyin ku dambeeyay saldhig waxa siyaasadda waxa la sheegay inta halkaas ku sugnayd inaad kulanteen mas'uuliyiin gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro horkacayo oo aad ka wada hadasheen arrimo la xiriira midnimada Soomaaliya mudan farmaajo waftiga Cabdiraxmaan Ciro markaa Nairobi ku kulanteen waxa kale ka wada hadasheen wafdigaasi si briefly ah yaan u kulanay runtii waxay sugayaan dawladdan federaalka ah sida u dhaqanto ay sugayaan iyagu runtii Soomaaliland waxaan ognahay inay horumar gaareen ay nabadgelyo keeneen ay ka shaqeeyeen sidii ay mustaqbalkooda ma garatay marka anaguna waa inaan taas keeno hada tahay Cabdiraxmaan Ciro kale oo murashax mucaarada Soomaaliland buu ka tartamaya nidaam siyaasadeed miyaa dhigateen oo yaani qorshe siyaasadeed oo ka duraysan hadii labadiinu baa guuleysataan anagu siyaasadda Soomaaliland iyo election kala ma hadlin laakiin waxaan u hadalnay si Soomaalinimo ah si walaalnimo ah yaan u hadalnay iyo guud ahaan xaaladda aan ku jirno iyo kala qaybsanaanshaha iyo midnimada faa'iidada lahaan karto marka anagu intaan fariisanay meena jeexjeexin laakiin si briefly ah yaan kullayba soo turturnay in loo baahan yahay in dadkan Soomaaliyeed ee waalaha ah la soo dhaweeyay marka laakiin siyaasadda la isku hayn arintaas inay jirtay oo ay kulmeen ra'iisul wasaaraha iyo laba wasiir oo la socday Nairobi ku kulmeen xisbiga wadani hotel hubka la yiraahdo Serena ay ku kulmeen la isku ma hayo shalay waxaan ka filaynay gudoomiyaha inuu yiraahdo waar nimanka waxa saan sunday qarannimadeedii nasiya baan ku niri in waxyaabaha ka hadlay laakiin uu dafiro waxa weey waa tan maanta u soo fariisanay meediyaha cadeemaheediina warbaahintan horkeenay markaan anagu gaarkay sunahay waan weydiinay qolada wadani walibana wafdiga kuwii la socdaan weydiinay waxay igu yiraahdeen nimanka hudheelkan ku wada jirnay hudheelkan wada deganayno hudheelkan ku wada jirnay shaahan wada cabnay dabcan mar haday ilaa halka qiranayaan imakana wuxuu leeyahay gudoomiyuhu ma baanaan arkinba annagana waxay noo qirtay inay shaah wada cabeen mar haday shaah wada cabeen wax waa laga wada hadlay ilaa dadku aamusmaayay ta kale ee fadeexada ah ee aan doonayna maanta shacbiga reer Soomaaliland inaan u cadeyno website kan la yiraahdo Star ama journal kaba waxaan idin sheegayaa in sir kale oo qarsoon baan idin sheegayaa in lacag fara badan oo boqolaal kun oo dollar gaaraysa website ka yar qaatay iyadoo ay siinayso safaaradda dawladda Soomaaliya ee aynu shaarkanahay website-ku markuu warka soo qoray wuxuu ku jiray warku ilaa 9kii subaxnimo ayuu warku ku jiray warka waxa laga saaray 9kii iyo 10 mirir baa laga saaray cidda ka tuurtay waayo waa safaaradda Soomaaliya ka tuurtay safaaradda Soomaaliya lacag siisa website-ka iyadaana ka tuurtay lacag boqolaal kun oo dollar oo qaatay website-ka yar waxaana laga yaabaa markiiba waxa buuqday maadaama shacbiga reer Soomaaliland ay qadiyadooda mar walba gaar ka hayaan markiiba website-ka yar waxa buuqday waan eegay fiyugiiso dad gaadhaya ilaa 80,000 oo qof ayaa daawaday ayaa warka akhriyay marka arkeen sida dadkaas u akhriyayaan ayaa leeyahay wallahi waa ceeb dawladda Soomaaliya si ay xisbiga wadani raadkiisa u masaxdo ayaa lacagta ku bixisay waxaan halkan idinku soo bandhigayaa xilligii warka laga saaray anigu 9kii iyo 11 mirir baan dib u eegay warka iyadoo 9kii subaxnimo aan ku arkay warka waan ka waayay maanta oo cadaatay runtii arrin aan horena u sheegnay beerisan ku soo biiray wadani inay noqonayso mid bedela khariidada siyaasadeed ee Soomaaliland wafdiga uu hogaaminayay Cabdiraxmaan iyo madaxweyne ku-xigeenku anagu ka mid ka ahaa
waxaanu u tagnay caalamka inaanu u baryatagno inaanu qadiyadda Soomaaliland u sharaxno inaanu abaaraha kala hadalno inaanu abaaruhu xadkay joogaan u sheegno inaanu safaaradaha ku wada yaalla Kenya iyo dalbixiyaasha la kulanno inaanu ka hadalno arrimaha ku lug leh xoolaha la joojiyay waxaanu leenahay ilaahay dadkeena ha u kaco qof kasta oo reer Soomaaliland waajib ay naga saaran inaynu ka hadalno cidaynu warkeena gaarsiin karno